Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta waxaan inii hayaa 10 magaalo dadka intiisa badan aysan aqoon ama 10 dal oo dadka intiisa badan aysan aqoon u lahayn. Muhiim ma ahan in aad ogaato in ay yihiin dalal ama wadamo, laakiin waxaa ku muhiim ah in aad ogaato sida aad u noqoto khabiir dhanka juqraafiga ah. 1. Vanuatu. Waddanka Vanuatu waa waddan jasiiradeed ku yaalla koonfurta badweynta Pacific, wuxuuna masaafo 1750 kiiloomitir u jiraa waqooyi bari ee Australia. Badka uu ku fadhiyo dhul ahaan, waddankan waa 12,190 kiiloomitir iskuweer. Caasimadda waddankana waa Portofino. Waddankan waxaa looga hadlaa 3 luqadood oo kala ah Faranji, English, Salama. Dhaqaalaha waddankan waa mid ku tiirsan kalluumeysiga, beeraha iyo dalxiis. Sida badan waddankan waxaa ka dhaco volkaanooyin iyo dhulgariiro sababa burbur dhaqaale oo aad u xooggan. 2. Nauru waa dal ka kooban hal jasiirad, dadka degganna waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 13,770. Sanadkii 2008 waxaa loo aqoonsaday in ay tahay dalka ugu yar adduunka. Dadka ku nool yihiin ciyaarista kubadda cagta, waxay leeyihiin horyaal iyaga u khaas ah oo ka kooban 7 koox. 3. Tuvalu waa waddan qaab boqortooyo ah u samaysan, mana lahan wax xoogag militari ah ama ciidamo nidaamsan. Tuvalu waa waddanka saddexaad ee ugu yar adduunka. Tiro ahaan dadka deggan waxaa lagu qiyaasaa 10,472, waana waxa ka dhigaya waddanka saddexaad ee ugu yar dunida. 4. Jasiiradda Comoros waa jasiirad Afrikaan ah oo ku taasha badweynta Hindiya inta u dhaxaysa waddanka Mozambique iyo Madagascar. Waxaa gumaysan jiray jasiiraddan gumaystihii Faransiiska. Jasiiraddan badkeedu waxa uu la egyahay 1862 kiiloomitir iskuweer, waxaana lagu taliyaa jasiiraddan dowladda saddexaad ee Afrika ugu yar xagga badka. Dadka deggan tiradooda waxaa lagu qiyaasaa 798,000, waana sababta ka dhigaysa dowladda lixaad ee ugu yar Afrika xagga dadka. 5. Guernsey waa waddan hoostaga maamul ahaan Britain, mana ahan qayb ka tirsan Ingiriiska, sidoo kalena kama tirsana Midowga Yurub. Wuxuu ku yaallaa xeebaha Ingiriiska ee Normandiya. 6. Isle of Man. Jasiiradda Man waa jasiirad maamul ahaan hoos tagta Britain, laakiin leh maamul iyada u gaar ah, waxayna ku taashaa badda Ireland, waxayna u dhaxaysaa jasiiradda Britain iyo Ireland. Waddankan dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay sarifka iyo dalxiisayaasha. 7. Tokelau waa maamul goboleed ictiraaf raadis ah ee hoostaga New Zealand, wuxuuna ka kooban yahay 3 jasiiradood, waana jasiiradda ugu dhaqaalaha yar caalamka. Dadka ku nool jasiiraddan 57 boqolkiiba waa dumar ama haween. 8. Cook Islands. Jasiiradda Cook. Jasiiradda magacan waxaa u bixiyay dhulbixiyihii soo helay waddanka New Zealand iyo xeebaha bari ee Australia, James Cook. Dhaqaale ahaan waddankan wuxuu ku tiirsan yahay dalxiis, oo sanadkii waxaa soo booqda in ka badan 90,000 oo dalxiisayaal ah. 9. Pitcairn Island. Jasiiradda Pitcairn waxaa loo yaqaanaa magac ahaan Pitcairn, Henderson, Dawsey iyo Owino, waana jasiirado 4 ah kuwaasoo horay u gumaysan jiray Ingiriiska. Luqadda looga hadlo waa Ingiriis iyo Tahiti. Waxaa ku taasha hal maqaaxi iyo hal restauranti oo lagu iibiyo waxyaabaha la cabo sida sigaarka iyo khamrida. 10. Republic of Artsakh. waa tiriyaa dowladdan inay tahay mid ka mid ah dowladihii iska caabiyay Midowga Sofiyeed dagaaladii bilowday 1991 ilaa 1994. Haddana ma aha dowlad la aqoonsan yahay. Dadka ku nool 95 boqolkiiba waa Armenian, inta soo hartayna waa dad Giriig ah.